soo noqod wanaagsan halkaan naga daawanaysiin waa wanaagga qoyska waa maalin khamiis ay taariikhda ku beegantahay 11 bisha Juun waxaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Burco wariyay Samafali Cabdimaalik Muuse Codon ayaa isbuucii hore xorriyadiisa dib u helay kadib muddo hal sano oo ku xirnaa xabsi ku yaala magaalada Hargeysa. Cabdimaalik Muuse Codon ayaa maanta shacabka ku nool magaalada Burco si weyn u soo dhaweeyeen taasi oo farxad gelisay. Cabdimaalik Muuse Codon oo saxaafadda la hadlay ayaa aad ugu mahadceliyay shacabka ku nool magaalada Burco una sheegay inuuna hilmaami doonin mar walba sida ay uga qayb qaateen soo siidaantiisa. Cabdimaalik Muuse Codon oo bar saxaafadda la hadlay ayaa aad ugu mahadceliyay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ku sugan yihiin taas oo sheegay in mar walba Soomaalinimada ay ku weynaan doonto. muuqaalka xiga ayaa ila wadaagi doona fiidiyoga Cabdimaalik Codon oo u mahadcelinaya ummadda Soomaaliyeed. fadlan haddaan ugu cusub tahay janaalkiina wanaagga qoyska subscribe noo dheh waa ku mahadsantihiin.